Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada Tix Technology. Waa Cabdirasaaq Maxamed. Waxaan halkan ku baran doonaa kooraska Basic Computer Application ama barashada computerka ee asaasiga ah. Waxaanu qaadan doonaa qaybta ugu horeysa computerka qaybihiisa kala duwan, sida uu computerku u shaqeeyo, programka uu computerku u shaqeeyo loo yaqaan operating systemka, khaasatan programka Windows 10ka iyo qaybaha Windows 10ka kala duwan. Windows 10 ku shaqooyinka ay noo qabanayo sida aynu shaqooyinka u bedeli karnaa ama meelaha aynu Windows 10 ka u baahanay inaynu bedelo. Qaybta labaad waxa weeyaan Microsoft Office ka ayaynu baran doonaa. Word waa program loogu talagalay in qoraalada lagu sameeyo, kaasoo aad ku samayn karto dokumentiyada kala duwan sida CV-yada loogu qorto, sida buugaagta loogu qorto, sida buugaagta content-igooda kala duwan loogu habaysto, sida waraaqaha kala duwan loogu sameeyo. Waxa ku xigi doona programka la yiraahdo Microsoft Excel. Excel-ka waxaynu ku baran doonaa xisaabaadka, qaybaha kala duwan ee xisaabaadka, sida loogu shaqeeyo spreadsheets-kiisa kala duwan, workbook-yada kala duwan sida loogu shaqeeyo, sida loogu xisaabiyo meheradaha, sida loogu xisaabiyo ardayda imtixaanaadkooda iyo grades-kooda iyo waxyaabaha kala duwan, sida loo sameeyo charts-ka, qaybaha kala duwan ee filters-ka iyo qaybaha uu shaqeeyo Excel-ka ayaynu qaadan doonaa. Waxa inoogu xigi doona programka la yiraahdo Microsoft Access. Access waa database kaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo xogaha kala duwan sida alaabooyinka, sida imtixaanaadka iyo database-yada kala duwan sida loogu sameeyo, sida tables-ka loogu sameeyo, sida queries-ka loogu qoro ama query-yada loogu sameeyo, sida forms-ka loogu dejiyo ama form kala duwan iyo qaababka uu shaqeeyo report-yadiisa iyo waxyaabahaas aynu qaadan doonaa. Waxa ku xigi doona programka la yiraahdo Microsoft PowerPoint. PowerPoint waa program loogu talagalay in loogu talagalay soo jeedinaha ama presentations-ka, sida presentation-ka ugu diyaarin lahayd, sida aad ugu qurxin lahayd, sida animation iyo dhaqdhaqaaq ugu samayn lahayd, sida teams kala duwan u isticmaali lahayd. Sidoo kale waxaynu qaadan doonaa programka la yiraahdo Microsoft Publisher. Publisher waa program loogu talagalay in wax lagu daabaco sida ID card-yada, shahaadooyinka, invitation cards-ka iyo kaararka kala duwan sida loogu sameeyo ayaynu isagana qaadan doonaa. Waxa aynu qaadan doonaa programka ugu dambeeyo la yiraahdo Microsoft Outlook. Microsoft Outlook waxa loogu talagalay in emailada lagu isticmaalo, sidoo kale ballamaha, hawl maalmeedyada iyo tasks-ka sida loo geliyo, sida tusaale ahaan oo kale loogu sameeyo noodadka kala duwan. Waxyaabaha kala duwan baynu ku baran doonaa programka ugu dambeeya magaciisa la yiraahdo Microsoft Outlook. Intaas ayuu course-keenu ku eegyahay. Waxa loogu talagalay dhammaan qof kastoo xiiseynaya inuu barto computerka iyo qof kastoo hore computerka u yaqaan doonaya inuu dib ugu ceshado. Course-kani waxa weeyaan waa diiwaangelinta kaliya aad bixin doontaa, wax fee aad bixinaysaa haba yaraatee ma jirto. Course-ka shahaadadiisu waa free. Ardaygu muddada uu dhiganayana wax lacag la weydiinaya ma jirto marka laga yimaado diiwaangelinta course-ka ugu horeysa.